taariikhdeedii hore waxaan ku soo barbaaray magaaladan Hargeysa xaafadda Dumbuluq waxa ay u xigtay xaafadan ku xigtay stationka ina shiiliga ay lahaayeen ciyaal baan ahaa ka bacdi wali kaxeeyo Cergaaba la geeyay Cergaaban iyadana muddo aan soo joogay dabadeedna reerkayga baan ka soo baxsaday Hargeysa dib ugu soo noqday Hargeysa markaan dib ugu soo noqdayna aad baan u jeclaa fanka hatta anigoo ciyaal ciyaaraha marka la tumanayo anigoo gelan baan gali jiray ciyaarta waayahay aakhirkiina waan istijaabiyay inaan heesi karo ayaan ogaaday marka saar hadii aan ka dhex galo waqtiyada Hargeysa Cergaaba kala goobtay taariikh ahaan waqtiga ku suntaneed adigu ilaa 9 sanadood meelaha waxaan joogay Cergaabo yaa anigoo dabadeedna haddana 13 jir Hargeysa dib ugu soo noqday halkaasaan dabadeedna ka bilaabay ciyaar Soomaalidan ciyaari jiray sidii wax saar qabaan isku tuuri jiray ciyaar Soomaalida sidaasaan dabadeedna ku bilaabay heesaha imsada marka waxay ahayd aduu 13 jir baan ahaa markaan bilaabay yaa iskuul markaan galay gumadana waxa ay ahayd maxay adigu 69 baan toos soo galay fanka waxaan u dhignay riwaayad Ali Sugulle leeyahay oo xamar lagu soo dhigay koobi ayaan ahaa koobigii ahaa riwaayad weyn baan dabadeedna dhigay haddana oo leeyahay Axmed Salaamti yaa garasha garabooyda hadsamooye la gaari riwaayad kale oo iyadana la yiraahdaa maxay nindir sare lagu galmay xulahaad haysay laba heesood oo aan wada qaadna anigiyo Maxamed Nuur Gareey yaa heesahan baa kaga jirta oo oranaysa aniga Maxamed Nuur Gareey baa wada qaadayna talama aad nagu tuu urjixlayste hadba waa Ilaahay arinku hirgeliya yaa hadba waa Ilaahay arinku hirgeliya hay oranin hana eegin inaan ka abaal dhaco yaa hay doobin adiguna lama ama daraade anigana awoodiyo hayga dhigin aqoon gaab ruwaadaasu taasay heesta labaad aan la qaaday ma hay khatray yaa heesta laga buraan qotoma ee qarada weyn adigoo qabow cidibaad ku qodqodaysatay qow taabayo yaa oo taabayo inaan yow qaldani yaa hubka iga dulqaad taasuna taasay ahayd ما هي قدها عينيك كالجعل يا غرفة ما دي لقرشي ما هي قدها عينيك كالجعل يا غرفة ما دي لقرشي لبدي قبك
heesaha waa la hayaa weli waa la dhegeysta waa saacadka loo jecel yahay laakiin dad badan markay maqlaan Sahro heesaheedii hore hadalhaysa waxay isweydiin karaan talow Sahra codkeedii hore loo hayay iyo kan nimanka in haddii la isbarbar dhigo talo nooc u soo bixila كل مر عيال بانها يا مركي تنبنا دي أوركو إنتانو دوب مارت أوكي يقدر سكرة هذا وحن وضبع وان دوب تلعسد ما يبانتي أن رواد إن هيرتي دا الستحات أن كقبتي دا عب كعنت هذا مديك وان باهنين أي هاي سوكا دي ها أنا يادن هري أيها وذا قادم marka riwaayadii baad sii waday maxaa kugu sii xigan ma tiri koobi karo riwaayado badan baan dhigay riwaayada heesta lagu yidhaa may baaqda sida beel yacni way ku jirtay garashaa garab weyday xadse mooye la gaadhi baa riwaayadda la odhan jiray waxaa igu xigtay riwaayad kale oo aanan magaceeda iminka hayn oo aan wada dhigayna aniga iyo sooraan iyo yaa xagga riwaayada marka laga yimaado bal waxaad sheegtay waqtigii aad fanka bilaabaysay inaad xiisayn jirtay tusaale ahaan ciyaaraha oo kale in adiga qoys ahaan labada dhinac marka la eegayo fanka meel laba xidhiidh ma ka leedin hore maya aniga iyo ninka lagu yidhaahdo cabdalle maxamed caraale cabdalle sagsaag ayaa xagga hooyanimo labada iyada hooyo waa walaalo nin habra wadaag baanuna laakiin faamiliga iyaga kale wax heesa iyo wax qabyo toona male marka markii ugu horreysay ku tijaabiyo kuuri Sahra Axmed heesa karta nin dhinto cali faynus la odhan jiray ayaa tijaabiyey ii tumay kabanka dabadeedna mukhajil baan ahay walow aan khajilayay haddana maaragtay waan socda yaa riwaayado badan heesa badan oon qaaday way jiraan xilliyadii hore oo kale ama 70-aadkii 80-aadkii waxaa jiray kooxo fanaaniintu ay ku kala qaybsanaayeen oo tusaale ahaan waa beri ay ugu weynayd in kooxaas kale xaggeeda kaga jirtay anigu kulli waxaan ahaa qolada Hargeysa joogta yaa riwaayadii lagu odhan jiray dab jacayl karin waa galbeed waa la xoreeyey waraf iyo shimbiro warisuma hayaan nin qasbaya jacaylka ma loo qoori karaa war adigu heesa badan iyo riwaayado badan ayaan dhigay laakiin anigu qolada Hargeysa u badan baana marka waa berina waana hay siday fanaaniinta badan ka sheekeeyaan marka aanbaxa fankooda ay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan xilligaasaan ka qayb galay heesi hirgalay taasaan ku soo baxay taas adiga bal marna ma ka qayb gasho wax tartan faneeda
tartan faneed kamaan qayb gelin toos ayaa la ii saxay may fahanti waxaana weeye dee qofku hadduu markaa isa soo saaro dee ma geli karo heesaha hirkale heesaha hore heesta subxis la yidhaahdaan ugu jeclaa yaa adigu waan hirgale siday tahay subciska dad waxa laga yaabaa imka waqtiga dambe inaan garanay ba ma magacba ma qaab hees loo qaadi jiray waa hees qaab loo qaadi jirayoo yaa weyne wax laga ma waayi jirayni waanaagi xigsi waxyeeladan waan gartay in codkana waa sidii hore uun weli sidaan arkayo sidaan isleeyahay in waan gartay marka noloshaadu ma fanku bay ku koobnay saara mise waxyaabo kale aad qabsan jirtay oo maya noloshaydu fankuun bay ku koobnay yaa noloshaydu fankuun bay ku koobnayd kooxa tartan galayna maanaan ahayn ruwaadii la odhan jiray dab jacayl karin waa inantayda ayaan baan uurkeeda lahaa dabadeedna anigoo 8 bilood ah khadra daahir bay bedeshay yaa haa ruwaadii gashay xamar baan joognaa markaa yaa laqayada jacaylkiyo lurta caashaq kululaga ruuxaadu lahaatayo kugu laaday ba'ana waxaan hadalba ii labin sida laygu kaladhay haddii aad 6 goor runuqo itidhaa 12 naftan libiqsanayse labanaysayaysiin ladanow miyaan la'aanta anigu ladiyaa hurdada laqayada jacaylkiyo
intaas waxaynu ku dhan qaybta koobaad intaynu qaybta labaad oo ay iyaduna aad ku maqli doontaan arrimo ay ka mid yihiin nolosha fanaanada fankeeda xilligan qorshaheeda mustaqbaleed ee dhanka fanka iyo arrimo kaloo xiiso badan waxaan isku dhaafiyaa anigoo ah Cumar Serbiya kuna sugan magaalada Hargeysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.